sida ay Kalsan TV u xaqiijiyeen dadka ku nool deegaanka Qoryaale ee hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa halka lagu arkay dhacdo cusub oo dadkii arkay ay aad uga argagaxeen. Dhacdadan ayaa ahayd mid dadka deegaanka qaarkood ay arkeen wax ka kooban guryo dabaqyo ah, masaajidyo iyo waliba geedo una gurguraya dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga iskuna xira cirka iyo dhulka. Dhacdadan oo ah mid cusub aadna looga hadalhayo guud ahaan gobolka Hiiraan ayaan la ogeyn in ay tahay waxa dadka ay arkeen mucjisada rabbaani ah ama ay tahay in ay arkeen dadkaasi dayax gacmeed. Dadka ayaa xusay inay isku dayeen in ay kor tagaan wixii ay arkeen ee mucjisada ay ku tilmaameen, balse markii dambe ay u suurageli waysay in ay kor tagaan ayna u dhammaadeen wixii ay arkayeen dhanka badda. Si aan wax badan dhacdada uga ogaano waxay Kalsan TV ay la hadashay Aamin Cali Makaraan oo ka mid ah dadka jooga deegaanka Qoryaale indhihiisana ku arkay mucjisadaasi. aniga horta Aamin Cali Makaraan la yiraahdo ma fahamtay. Waa gartay. tuulada Qoryaale degmada Jalalaqsi 20 kiiloomitir u jirta jooga. Haye. niga roobka 12 saac iyo barayeen xilligu dacay roobkii markuu qayooday waxaa kulley dadkii banaanka jooga waxay yidhi magaalana kor guuraysa war magaalana kor guura war magaalana kor guura. wixii dadkii banaankii joogay markuu ceelkii dhowrka yidhi oo magaaladii tuuladii la faaruujiyey wixii loo diiday baa waa wada fiirinay. guryo iyo waxaa noo soo baxay iyo maraayado iyo dabaqyo dhisan geeduhu ku dhex yaallaan oo cambiran cambaha iyo baararka iyo adigu waxyaabo badan ku yaallaan. waa gartay. wixii ummadii dad quraanka u ka dhawaaday oo salaada u dadbay dadna wixii wuxuu yiri waxaana la aadinaa maaragta soo arkayna. haye. la yiri wixii mugdi lagu dhow yahay marka meeshii lagu dhow yahay wixii dhinaca oo koonfurta waqooyi iyo koonfurta kala socday waqooyi waa ka socday koonfurna waa u socday. waa gartay. dhinaca koonfureed badda ka galaya markaas shoocaha ku baxsaday waxa weli la arka ma ahayn waa laakiin maqaadir ilaahay oo cirka iyo dhulka aasatay ummadda Qoryaale joogto dhana kurteeda aragtay waxaas marka xaqiiqo waay amuur ilaahay wadana waay cid bini aadan oo hadda maaragtay aragtadaas iyo anaka tusaalahaas bisaaba la ekay ilaahayna haddana markaan u dhawaana haddana ilaahayna asaaba wixii maaragtay oo sababa. waa gartay. dabcan adigu waxaad tahay nin oday ah xogtiisana lagu kalsoonaan karo marka ma aragtay adigu waxa oo indhahaada ma saartay. waxa ugu dambeeya masaajidku waxa waaye waa ugu dambeeyey dad badan oo maaragtay culamo iyo caamaha wiilgayna u jarfanay wuxuu cirkiga dhulkana waa istaasaan dabaqyo camal oo dhishan waaye dhinaca koonfurta baday ka haastaan dhinaca kalena waa ka socdaan waqooyiga. waa gartay. marka maxaad aragtay adigu? ma masjid oo keliya ayaad aragtay mise wax badan oo guuraya aragtay adigu? waa guura wax badan oo guuraha arkay aniga indhaha saaray oo guuraha indhaha saaray xaqiiqo waa taas. marka dhinaca waqooyiga wuxuu ka soo guureen banaanka mugga iskugu tagnaan dadna quraanka rabbiga uu ka agdhawaaday dadna meeshii uu duday dadaaba haatee maaragtay aaba carre oo xalay duurka ku carre marka uu haatee waxaad arkeen weli wax la arkaa haatee maaha waxaas. haye. markii aad tagteen oo aad ku dhawaateen wixii ma soo wada aragteen? nibaqsi wuxuu sideedaba waxa waaye cirka marka aad fiirido wuxuu waa sharaxan yihiin in ku dhow yihiinna waa qotaa marka sii socotina wixii waa kaa sii socdaan. dadka ugu horreeyey markii naga dhaqaaqeen wixii anuguna ka daba dudayno oo maaragtay waxaa soo wada arka waana degan yahay aan islaynaa dhinaca koonfura oo badda uga furneeday waa miraqsi. waxa ma dhulka ayay inay soo degeen oo aad aragteen mase cirka oo keliya ayaad ku aragteen idinku? مثلا هذا إشهاد المبتدأ أكيد ضلكوا مركي إشهاد حركة ماشي هو دير أكيد ضلكوا يسكتوا بماركنه. وحنا ضل كانوا وحنا غير كانوا وحنا سادال ساتو أبيان واحد مركا وحوي وقولي عريش كم جريا نجحيه واحد قولي نجح أو تبقيا أو تسوى وهو البلد. مركا leerar miyay wateen oo ma ifaayeen mase
maya leerma wada laakiin guryaha dhowr rinjiya kala leeyihin marka masaajidka ugu dambeeyey iyo buuro dheerdheera ugu dambeeyey waxa waa buuraha geeday leeyihiin masaajidku waxa waa geedahaasa ku dhex yaalla albaabadiisu waa u furan yihiin dhinacna baday ka aasaniya marka saadaashaas wax ilaahay qadar ilaahay wax ka socdo waa maya salaada maaha shaxalay maqribka horteedii waa shalay galab xilliga roobku dacay waa roobkaasu dabaylo badanoo watay geedu waa isku dhacaya geedku waa lulunay xataa geedka mugaa maaragtay oo xagga kaa jooga xaggaan uu usoo dhacaa marka sidaasaa horta marka hore uu roobka ku bilaabo maxaa marka adinka istiraheen wax noocaas oo kaleana horay muu arki jirteen maya qorax madoobaata waa aragnay adiga bil madoobaata waa aragnay laakiin guryo camiran oo guur ah oo maaragtay geedo ku yaalaan oo masaajida ku yaalaan oo dabaqayaa anaka weli ma arag xubno ka mid ah maamulka degmada Jalalaqsi oo iyana dhankooda aan la hadalnay ayaa warkan Kalsan TV u xaqiijiyay waxayna sheegeen in waxa dadka deegaanka ay arkeen lagu tilmaami karo mucjiso. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.